مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه اليتامى دفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل كastoo ku sugantihiin dunida dacaladeeda asxaabteyda ku xiran channelkeena Zamzam hay dhaafin soo dhawaada. Bismillaahi alladii laa yadurru maca ismihi shay'un fil ardi walaa fis samaa'i wa huwa samiicul caliim. Isu soo noqod wanaagsan maanta waxaan idin wadaa insha Allah tacaala oodka ama muqmad sida loo sameeyo insha Allah tacaala. Waxaan ku darsanay cusbo hilibkii haysanaa wax kale timo ku jiro digsi baan ku shubanay qalalan cusbo qaado cusbo aan ku darsanay ما شاء الله تبارك الله عبار isaga biyo dhalaaya biyahaas markuu dhalo ayaan wax yar biyihii baastamir ku soo meereynaa hilibkii oo wax yar maaragtay xoogna aan u karin biyihiina ka dhaceen ayaa meesha noo yaalo ma sha Allah waa u jeedaan ma sha Allah tabarakallah ma sha Allah hilibkii waa u jeedaan sidoo yahay insha Allah tacaala markaas waxaan soo qaadanaynaa hadda digsi ayaan soo qaadanaynaa saliidan ku shubanaynaa saliida caadiga ah cuntada lagu karsado waxaana ku darsanaynaa heel saliid caadi aan ku shubayaa hadda digsiga insha Allah tacaala saliida waxaan ku darsanaynaa heel aan soo tumay ma soo shiidin laakiin waa soo tumay heelka insha Allah tacaala saliidan caadiga canola oil ayaan isticmaalaa saliida cuntada aad ku karsatid adiga iska dheh noocay doontaba ha ahaato kadib heel ayaan ku soo darsanay aan tumay insha Allah ayaan ku soo daray saliidii wax yar aan dabka la saaray in yar ku soo yar karay heelkii wax yar oo aadan gubaynin yaa oo wax yar ah dabka u gaabsan yahay bas saliida marka waa soo miiraya heelka qolfihiisa iyo wixiisa ayaan ka soo miiraya caraftiisina saliida ayay iigu dhex jirtaa ما شاء الله تبارك الله هيلب كان سoo qaadanaya saliidii oo aan soo miiray oo aanan qashinka heelka iyo waxa ay ku dhex jirin ayaan ku dhex darsanaya hilibka oo aan ku shiili rabaa insha Allah tacaala heelka waxa uga miiraayo qolfihiisa iyo mirihiisa yararka ah yani uu tuman yahay laakiin afka inuusan dadka u gelin ayaa la rabaa ما شاء الله تبارك الله سريدي واسو ميرنا هيلكي waa laga soo miiray hilibkii aan ku dhex darsanay xogaa iyadoo kulul laakiin xog aan u karkareynin ayaan ku dhex darsanay ما شاء الله تبارك الله waa ila socotaan aan filayaa marka waa walaaqaynaa ilaa iyo intuu diyaar ka noqonayo waa intaas loo walaaqo si uusan u gubanin lama rabo hoos inuu qaybaha hoose markii la shiilaayo hilibka inuu adkaado lama rabo marka insha Allah tacaala si uusan hoos uga gubanin hilibka oodkaca waa in la walaaqaa ilaa iyo maaragtay kulli ilaa dhamaad in la walaaqo waa maanta dhan qaadada inaan ku dhex wadid waayo saa ugu walaaqdid insha Allah tacaala isagiyo carfaayo oo heelki saliida lagu la shiilay iyo wixii dhan ma sha Allah dhex galeen ayuu noo bislaan doonaa insha Allah tacaala waana ku wadaynaa walaaqida Allah ilaahay intuu ka gududanayo waa ku wadaynaa walaaqida haduu ilaahay yiraahdo hal marna inaan laga joojinin waaye maxaa yeelay hoosu ka adkaanaya ka gubanaya qaybta hoose hadii aadan walaaqin hilibka uu gubanayaa insha Allah tacaala wuuna kala karayaa insha Allah waa ku mahadsantihiin insha Allah tacaala la socodka ila socotaan markasta ma sha Allah tabarakallah waan idin kaga mahad celinaya sida u jeedaanba uu noo soo dhawaaday insha Allah tacaala laakiin wali waxaan ku wadnaa walaaqidii insha Allah inta laga gaarayo xilliga uu karo oo diyaar ka noqdo saliidana waa iska saarayna saliid kale aan ku darsan doonaa insha Allah tacaala dhamaantiin soo dhawaada ku soo dhawaada channelkeena haddii aa igu cusub tahayna ha iloobin inaad subscribe ka saartid asxaabtaadana la wadaagtid sidoo kale like-ta iyo share-tana ha naga iloobin soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow Zamzam hay dhaafin channel ما شاء الله تبارك الله وجدان hilibkii uu noo soo guduutay ما شاء الله wali uu noo socdaa saliidan markii noo dhamaado shiilitaanka insha Allah waan iska saari doonaa saliid kale ku bedelan doonaa oo nadiif ah haduu ilaahay yiraahdo waa ku wadaynaa insha Allah tacaala ilaa iyo intuu ka bislaanayo ma aragtay oo diyaar ka noqonayo timirtaas aan isticmaalaynaa insha Allah tacaala waa timir shiidan oo way ka madowdahay timiryaasha kale I don't know why insha Allah tacaala ku diyaarsanaynaa meesha haduu ilaahay yiraahdo hilibkan ku dhex darsanaynaa waa optional hadii aad rabi kuma darsanaysid hilibkeeni waa kana diyaar u noo noqday ma sha Allah
تبارك الله ونوشي المي سقو قرح بدن oo oodkii la arki jiray ah ayuu noo soo diyaar noo soo noqon hadda marka weelan soo qaadanaynaa insha Allah tacaala weelkaas aan hilibka ku wareejinayaa kadibna saliida waa ka bixinayaa saliid kale iyo subag aan diyaarsaday oo aan yara dhalaaliyo isku shiil labadooda isku dhalaaliyay ayaan ku darsan doonaa hilibka waa diyaar insha Allah tacaala ready to serve kulli waa diyaar wuu karay weelkii hadda soo qaadanayna insha Allah tacaala weelkaasaan ku wareejinayaa haduu ilaa yiraahdo ila socdaa waan ku mahadsantiin daawashadiina waa kana weelkaan aan ku soo wareejinayaa insha Allah tacaala wax la sugsugaayo oo meel la dhigdhigaayo oo la xarxarfinaayo midna ma ahan oo la qaboojinaayo weelkaan kala asagoo kulul ku wareejiyay insha Allah tacaala saliidii aan rabaa inaan ka soo wareejiyo saliida gooni ah isaga dhigaya saliid kale iyo subag oo caraf iyo tastiba u yeelo ayaan ku diyaarsanayaa marka aan ku dhex shubayaa marka shiilitaan kale uma baahno wuu dhamaaday shaqadiisii ma sha Allah waa diyaar waa la cuni karaa hadda ma sha Allah tabarakallah ma sha Allah tabarakallah ma gubanin oo adeeg ma noqonin hadii uu dabka kaaga sii daaho wuxuu ka noqonayaa isaga dhan wax adag ma arkin oo dadka goosaha iyo ka mudo uu noqonaa dadka qaar goosahooda bolol yihiin oo ka mudaaya ama ma aragtay qofka caadi ah xataa markuu ruugaayo oo kala qoryo noqonaya wax badan marka dabka ku deeynin adiga qiyaas markii uu saan u guduuto oo saliid ay noqoto xumbo ma aragtay kor ka soo baxay sida saliidiyo oo xumbo noqotay aragtid ayaa adoo wali walaaqaayo aanan ka joojinin usan ka gubanin oo beel uu yahay oo jilicsan yahay oo la cuni karo ayaa markaas diyaarsanay ka dejinaysa weelkii hadda ku wareejisanay ma sha Allah timirtaana isticmaalayna timirtan waa timir shiidan waan soo kuuskuusay aan ku dhex darsanayna waa optional qofkii rabo umba ma aragtay ku darsanaayo if you don't want timir ina ku darsatid leave it adiga iskaga tag yani iska daa caadigiis ku cun laakiin hadaa timir rabtid ku darso saliidi waatana waa ka soo saarnay hilibki waa ka soo wada dhameeyay saliidi caadi saliidaas meel iska dhigayna insha Allah tacaala we don't need it anymore wax kaleeto saliidan waxba uga ma baahnin saliid kale ayaan diyaarsanaynaa waxaan isku diyaarinayaa subag yar oo subaga caadiga ah subaga lo'da waaye dhahaan dadka kan caadiga ayaan isticmaalaynaa 2 qaada ah iyo saliid yar oo aan ku daray saliida caadigeeda hadda aan ku shiilaayo ayaan ku dhex dari doonaa insha Allah hadda wax kale uma baahnin saliidana wax yar shiilanaya iyo subagaana in yar oo saliida ku shubaya ku daraya wax yar aan soo dhalaalinaya ma sha Allah heel inaan ku daro uma baahni heelka qaraar uu ka dhigaa cuntada hadii dhowr jeer lagu daro kii hore ayaa ku jiro oo caraf ka dhigay hilibkeenana waa diyaarsan yahay marka insha Allah tacaala marka saliidan soo shiisho ma sha Allah qatar oo isku soo noqonaa waa soo shiilay saliidii hilibkina waa ii kana oo timirti aan ku dhex darsaday waa ku darayaa marka insha Allah saliidan kalena ma rabno ma u baahnin timirti oo kuusan ayaan ku dardarsanayaa insha Allah tacaala markaasna subagii iyo saliidii oo carfaayo ma sha Allah la soo dhalaaliyay ayaan dusha uga darsan doonaa maadaama hilibka mar hore uu noo karay ما شاء الله تبارك الله timirtii ayaan ku soo diyaarsaday timirtii oo kuusan ku soo dhaxdaray sida idin sheegayba horay idin kugu sheegayba qofkii raba ayaa ku darsanay timirta kale way ka madowdahay I don't know why marka waana timir ma sha Allah diyaarsanayd oo xalaalka aan ka soo gaday ma sha Allah ayadaan haayay timir kale maan haynin ma sha Allah waa kana hilibkeeni oo aan ku soo dhexdarsanay subagii ma sha Allah tabarakallah isagoo nadiif ah subaga arkayseen iyo saliid isku dhex jiray ayagoo nadiif ah lagu soo daray ma sha Allah tabarakallah sidaan ku soo baxay hilibkeeni dushana timirtii kaga jirto timirtii ku wada dhex jirtaa kulli markaan macal timirtii macal kulli ku sameeyay ayaan saliid subagii iyo saliid ku dul shubay ma sha Allah weelashan yaran ku soo diyaarsanay saaka quraacdi reerka ayaa laga dhigayaa rootigaana waan ku cunaynaa insha Allah tacaala ama rooti ama canjeero hadba sida doontid ayaa ku cunaysaa shaahana ku cabaynaa iyo bigeyska
ما شاء الله تبارك الله أنت عنيس الله أداويه دمان أصحابتي إذا ميل كستو كسوغنتيهين إن شاء الله تعالى فيديو جيني مانتا أنك kusoo duubnay oon kaga hadlaynay oodkaca ama muuqmada sidii aan usoo sameynay maanta intaasuu noogu egyahay intaan videogan lamida ku kulmi doono insha Allah tacaala naftayda iyo naftiinaba waxaan u dardaarmayaa cabsida ilaahayna subxaanahu wa tacaala qaatumo wanaagsan ha nagu dilo intii dhimatay waalidiinteen iyo inta noolna Allah u naxariisto waxa aad igala socoteen channelkeena Samsam hay dhaafin channel waxaan idin soo jeedinayay anigoo ah Samsam hay dhaafin ha iloobina subscribe ka saa ila socotaan salaamu alaykum wa rahmatullahi